ahaan arrintaas ee Soomaaliland ahaan sida ay ugu muuqato waxay ugu muuqataa runtii shirkaasi inuu yahay shir mug iyo miisaan leh isla markaana wixii midho ka soo baxana aynaan waxa weeyaan sugi doono dadkii aynu dirannay mas'uuliyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay taabanaysay waxa historically arrin taariikheed oo jirtay oo aan sida aan qoraxda ama cadceedda sacabka loo saari karin aan loo saari karin qadiyadda Soomaaliland iyo sida ay ku soo bilaabantay iyo turturooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii waaweynaa ee soo maray Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaygu waa Mukhtaar Cali Cabdi maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul la xaal leh oo la taaban karo midnadeed leedahay soo hooyay sababtoo ah wuxuu ka sheekay halgankii ummadda Soomaaliland si loo xaqooqay wuxuu xasuusiyay jiilka yar ee aan waxba ogeyn ayuu maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan looga baqanayn maanta Muuse Biixi Cabdi maanta wuxuu tusay shacbiga Soomaaliland ee dhalinyarada ah inay Soomaaliland tahay dawlad jirta madax bannaan dastuur leh baarlamaanti leh waa ninka farmaajo madaxweyne sheeganaya waa ninkii cunaqabataynta qabtay waa ninkii awood waayay in ciidamadiisa siiyay mushaarka isagoo dawladaha wax siinayaan baarlamaankii baa laga caawinaya farmaajo oo lacag la siinay madaxweynaha qaranka ciidamada Soomaaliland iyo meel kasta Soomaaliland dawladda Soomaaliland ma bixisa iyadoo caalam bixinin labadii qof hadii istiidaa way kala tagayaan Soomaaliya waxa noo dhaxeeya dagaal mooyo wax kale ma jiro madaxweynaha waa hambaleenaya Jabuuti ugu horeyso inay Soomaaliya ku biirto nimanka kiilka shanaad inuu soo gooyay Abiy Ahmed ugu horeeyo yiraahdo waa ku diray kiilka shanaad Soomaaliland midnimadii ku soo biir diyaar batawnahay laakiin si Soomaaliland inta la kaxay dib loo kaxayo si ariga yeeli meynada labada farmaajiyo waxaan sheegay baalkii Abiy Ahmed iyo ninka Jabuuti haysta madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay hambaliyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaran baatay u arkaa wadahadal qaldan sababtoo ah Soomaaliya kuma garawsanaynay kulaysay kuma garawsanaynay wax ku yeeshay maxay haday sidoo kale to maxay haday dawladnimadeedana weydiidantii kuguma raacsana wixii shirarkii hore dhacay wixii lagu heshiiyay ilaa aad fulisaan wax wada hadal inoo yaal marka shirka hadalka madaxweynahana waan taageersanahay uma arkaan wax midho dhalaynayno shirkaasi oo ka dhacayo shirkaan ma qaban natiijo ka soo baxayso kaliya shirka Soomaaliland ba ka faa'iido Soomaaliya faa'iido ugu jirta ma jirto waxaan leeyahay